والسلام على رسول الله وزيرك وزارة deegaanka wasiirka gaadiidka meeyarka magaalada marti sharafta kale oo dhan diblomaasiyiinta dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. First I will say all diplomats, experts, ladies and gentlemen, welcome to this important conference. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo furitaanka kulankan muhiimka. adduunyada waa wax ku cusub oo jiray muddo gaaban waqtigii la odhan jiray climate change ku bilaabmayna weliba waddanka Somaliland fikrad lagama haysanin oo la yaabanayn, laakiin hadda waa aragnaa dhibaatada ay keentay adduunyada isbedelaysa, cimilada isbedeshay, dhibaatada ay la timidayna waa aragnaa. haddaan lagu dagaal oo aan lagu talagelin oo aan laga tabaabulshaysanna dad iyo dunyaba waxay nagu dhacaysaa dhibaato aan laga soo waaqsanin. dowladda waqtiga aan joognay waddanka xukuumadda wadani waa muddo 2 bilooda, laakiin ballanqaadkii bay ahayd 100 maalmood ee ugu horeeya in lagu tallaabsado wasaarad kastiba wixii lafdhabarta u noqon doonaa barnaamijka howlqabadka ee 5 sannadooda. wasaaradda cimilada oo wasiirku hogaaminayo aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa inay hawshaasi ay ku dhaqaaqeen oo ay shirkan muhiimka soo qabanqaabiyeen. waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon inuu shir la iska furo, laakiin uu noqdo, waxaan rajaynaynaa ujeeddadii laga lahaa in laga meel gaadho oo laga midho dhaliyo oo uu noqdo mid bulshada Somaliland miyi iyo magaalaba anfaca. miyiguna ma dhaqan guuraya oo cilmadu ma taabanaysaa, magaalooyinkana way taabanaysaa. waa hawl adag oo aan u baahannahay inaan dadkeenna ku baraarujinno. weliba waxay dhibaatadu ka imanaysaa xoolaheenna oo innaga oo ah dad ku dhisan xoolaha 70% in ka badan. cimiladina ay saa tahay oo maanta dulba iyadoo gugii ay 2 bilood ka harsan yihiin, weliba aad maanta waddanka intiisa badan xoolihii markaad aragto ay dhibaato hayso. markaa talagal bay nooga baahan tahay. hadalka intiisa badan idinkaa shirka anuu idiin furayay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waanan ku bogaadinaya wasaaradda deegaanka. shirkani 2 maalmood soconaya, waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii inuu noqdo mid midho dhala oo lagu guulaysto. I also welcome all guests and hope the meeting and the conference will be successful and your contribution will be welcomed. Thank you very much for your coming.